الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان daawadayaasha ku taxan caweyska bare waxaan idin soo gudbin doonaa tabinta tooska ah iyo faalooyinka ciyaaraha maamul goboleedyada oo lagu wada magaalada Muqdisho inay ka qabsoomaan jimcaha in uu soo aadan haduu eeba idmo hadii aan u gudo galo gobolka Banaadir waxaa soo gaaray ciyaaryahanada matalaya xulka Hirshabeelle iyo wiliba Koonfur Galbeed oo mar horeba u sii diyaar garowgoodii ku sameynaya garoomada magaalada Muqdisho iyagoo waliba qaar kamid ah tiimka horyaalka Premier League ee Soomaaliya Premier League ka dheeradaba horaanba sidoo kale maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland iyo maxay ahayd Puntland ayaa lagu wadaa ayagana inay soo gaaraan magaalada Muqdisho si ay u qayb noqdaan ciyaarahaas magaalooyinkooda ay ku sameynayaan tababaradii ugu dambeeyay iyo kulamadii ugu dambeeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa xalay ugu dambeeyay oo sharaf u sameeyay xulka Galmudug ee matali doona gobolkan Banaadir ku soo bandhigi doona ciyaar cajiib ah dhiirigelin ayuu sameeyay xalay sidoo kale horaantii isbuucani madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe ayaa tiimka xulka Jubbaland oo ah horyaalka sanadkan u sameeyay dhiirigelin isagoo u rajeeyay guul inay kala soo hoydaan tartankan maamul goboleedyada oo gobolkan Banaadir lagu qabanayo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Diini madaxweynaha Puntland ayaa isna dhiirigelin ugu tagay halka ay ku sugnaayeen ciyaaryahanada Puntland oo garoonka dhawaan laga hirgeliyay magaaladaasi ku dheeriyay sidoo kale waxa uu rajeeyay guul dhamaantood waxa la filayaa in ay soo gaaraan ka hor maalinta Jimcaha oo ciyaarta lagu furi doono gobolkan Banaadir iyo waliba Galmudug intaysan dhicin la filayaa inay wala yimaadaan war-saxaafadeed dhamaan ka soo baxay wasaaradda ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ka hor waa 25 bishan inta rajanaya ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xulalka laga doonayay inay soo gudbiyaan waa madaxda ciyaaryahanada iyo marti sharaf kale oo ka kooban dhamaantood 50 ruux listigooda inay soo gudbiyaan magaalada Muqdisho ah u dayman la'aan ciyaarahaasi oo xiiso badan wata ayaa ka dhici doona sidii sanadkii horeba iyo waliba ka sii xusan dhamaantoodna waxay ka dhici doonaan garoonka Engineer Yeriso Stadium oo horey lagu yaqaan jiray Ex-Conis faalooyinka ku saabsan warbixinada ugu dambeeyay iyo waliba xanta ciyaaryahanadaasi inta meeshaas ciyaaraha ay socdaan halkan ayaad kala socon doontaan anigoo Maxamed Ibrahim Salaad ayaan si aqabtir ah idinku sheegi doona in soo wadaagi doona xogta ugu dhameystiran si aad noola socotay fadlan subscribe inoo saar fikirkaagana inoo reebsi warbixinta xigta aan fikirkaaga halkan ugu baahiyay waliba sida xamaasadda leh ee aad tiimkaaga u taageeraysid waad mahadsantihiin